Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan qaadan doonaa conversation 16 oo sheekaysiga 16aad. What do you do? Maxaad qabataa? What do you do? Maxaad qabataa oo maxaad sameysaa? When marka ama goorta you wake up aad soo kacdo in the morning subaxdii. What do you do? Maxaad qabataa when you wake up marka soo kacdo in the morning subaxdii hore. Marka soo kacdo maxaad qabataa? I aniga fast ugu horeen go to the toilet. Waxaan aadaa musqusha ama suuliga. Fast ugu horeen ugu horeen aniga go to the toilet. Waxaan aadaa suuliga. Musqusha baan aadaa, toilet waa musqusha. I take shower waan qubaystaa. I take shower waan qubaystaa. I brush waxaan cadeeyaa my teeth ilkahayga ayaan cadeeyaa. I brush my teeth ilkahayga ayaan cadeeyaa. Then kadib I take ablution waan weys qaataa. Then kadib I take ablution waan weys qaataa. And I pray waxaan dugtaa the fajr prayer salaada fajrka. Fajr prayer salaada fajrka ama salaada subax baan dugtaa. Do you pray miyaad la dukataa with congregation jamaacada miyaad la dukataa or ama in the home guriga ayaad ku dukataa. I pray with congregation waxaan la dugtaa jamaacada in the near mosque masjid noo dhow. In the near mosque waa masjid noo dhow. What do you do when you wake up in the morning? I first go to the toilet, I take shower and I brush my teeth. Then I take ablution and I pray the Fajr prayer. So do you pray with the congregation or do you pray with congregation or in the home? I pray with congregation in near mosque. In the near mosque. New words waa eray cusub. Wake up waa soo toosid. Toilet waa suuli ama musqul. Shower waa qubays. Teeth waa ilko. And ablution waa weysaqaad. Congregation waa salaad jameeco ku dukasho. Thanks a lot.